xildhibaanadii dhawaan shaqeynay xilka ka qaadeen Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta magacaabay guddi doorasho kaas oo ka shaqeyn doona doorashada madaxweynaha Galmudug sida ay sheegeen guddiga doorashada ee la magacaabay ayaa ka kooban 13 xubnood sida uu xildhibaanada ka hor aqriyay Axmed Yuusuf iyo oo gudoomiye ku meel gaar ah oo ah xildhibaanadan xildhibaanka ugu horeeya ee guddiga doorashada xildhibaan Cabdiwali Aadan Cabdi xildhibaan Yunis Muxyidiin Xaaji Maxamed xildhibaan Axmed Sheekh Nuur Warsame xildhibaan Cabdikariin Macalin Axmed intaas kadib ayaa xildhibaanada waxay cod gacantaa ku ansixiyeen guddiga doorashada sida uu ku dhawaaqay Axmed Yuusuf iyo xildhibaanadu markii ay u gacan taageen sidaan soo socota ayay u dhacay codkii 47 ayaa ogolaatay halna waa ka aamuso saas ay 48 ku yihiin xildhibaanada tirada guud waxa weeye 13 guddiga ahaa oo aan u soo loo doortay doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug sidaas ayuu ansax ku yahay dhinaca kale Axmed Yuusuf ayaa sheegay in gudoomiye ku xigeen koowaad ee baarlamaanka Galmudug Xareed Ali Xareed uu waayay xasaanadiisa xilhayn waxaan si cad u tilmaamaynaa in gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha sharci dejintu uu si sharci ah u lumiyay gudoomiyenimadiisa sida ku xusan qodobka 9aad farqadiisa koowaad xarafka A ee xoroosaadka dowlad goboleedka Galmudug oo tilmaamaya xilwaayida gudoonka haddii ay ka maqnaadaan Galmudug in ka badan 45 maalmood cudur daar la'aan isagoo uu gudoomiye ku xigeenku ka tagay 29 bishii shanaad 2017 uuna dib ugu soo noqday 24 bishii sagaalaad 2017 muddadaas ka maqnaanshaha oo dhan 117 maalmood ugu dambeyntii xildhibaanada ayaa idin u soo jeediyay qaar ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo ay ku tilmaameen in ay la kala safteen hoggaanka sare ee Galmudug waxaan halkan ka cambaaraynaynaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaarkood ee soo saaray bayaan aan sharci ahayn oo ay ku taageerayaan mudane Xaaf waxaan ugu baaqaynaa inay xurmeeyaan jiritaanka hay'adaha sharciga ah ee dowlad goboleedyada iyo qaanuunka ay ku shaqeeyaan ambassador Bashiir Aadan Cali Danan ayaa ku dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan Galmudug waxa uu aad ugu hadlay murashaxa xaaladda siyaasadeed ee ka taagan maamul goboleedka Galmudug isagoo xusay in Galmudug ay u baahan tahay hoggaan la jaan qaadi kara dowladda dhexe ee dalka murashax baan ahay hal shuruud bay nagu xireen oo dhaqaalahooda iyo shilinkooda ku bixinayaan haday dadka reer Galmudug yihiin meel kasta ay joogaan waxay doonayaan inaan magaca Galmudug mar dambe inta shandad lagu qaado inaan meelaha la geenin wadamo kale aan la geenin dhulka iyo dadkuna kira maaha dhulka iyo dadku waa asli ilaahayna siiyay lagumana aqoonin wax walba la sheego laguma aqoonin dadka reer Galmudug wadaniyada xumo iyo midnimo xumo Soomaalinimada dadku sareeyay ayaan magac ku leh laga soo bilaabo taariikhii halgamadii Soomaaliyeed ilaa leegadii haatana dhagaxumada dhacday iyo magac xumada dadkaas Galmudug la damcay in lagu tiro waxaan doonaynaa inaan ka tirno Soomaalidii ka naxday arrinkaas qaladkaas la galay dastuurkaas la hareer maray dowladda federaalka ah oo xilalkii ayadu ay lahayd iyo waajibaadkii ayadu ay lahayd lagu qabsaday waxaan doonaynaa inaan ka raali gelino waxaan hadii Ilaahay idmo aan samayn doonaa maamul hagaagsan dadkiisa daryeela nabadda ka shaqeeya horumarna aada oo ka shaqeeya horumarka gudahooda dowladda federaalka aan xiriir kan ugu wanaagsan la leh dowladda federaalka ahi ma dhibaateyn ka dhow Galmudug iyo meel kaleba waaxyaheeda qayb kamid ah weey maamul goboleedyadu ninna waxa Soomaalidu kuma amaadaan ninna oogadiisa biyo kama hagrado dowladdu waaxyaheeda ma dhibaateynayso macquulna ma aha laakiin waxa laga rabaa dadka reer Galmudug inay la yimaadaan hoggaan qasama in aan loo doorto anigu waan aadiyaa meeshaas murashax baan ahay hadii Ilaahay idmo laakiin qasama aniga loo doortay in laga fiirsado oo shakhsi ku haboon oo wanaagsan oo bisel siyaasadeed leh in meeshaas loo doorto oo aan isqabqabsi iyo shuruucda oo la geesmaro iyo xuquuqda Galmudug ay leedahay iyo midda dowladda federaalka ay leedahay dad isku qalda inaysan noqonin cid dambe oo la dooran doono arrinkaasi waa muhiim waa wax looga fadhiyo dadka reer Galmudug waa wax looga fadhiyo xildhibaanada sharafta leh dowladda federaalka ana waxaan filayaa inay ay ogolaan doonto markii dadkaas ay doortaan qof ku haboon oo wanaagsan oo munaasibkiisa yaqaan oo shaqadiisa ka soo baxo
aad baan kugu mahad celinayaa arrinkaas waa naga go'an tahay waan tageynaa meeshii waan howlgalaynaa awlba annaga bilawnay dantan u bilawnaan waxay ahayd inay istaagto oo ay dhisanto oo ay noqoto maamul jira haddana ka samrimeeno waan tageynaa waan badbaadinaa dalkeena iyo dadkeeni dawladdeena sharafka leh ee federaalka ahna waxaan aaminsanahay marka hawshaas aan soo eebiyino aan soo dhamayno inay nagu taageeri doonto dawladdu ay ogolaan doonto wixii ka soo baxa baarlamaanka galmudug wixii ka soo baxa dhaqanka iyo odayaasha iyo wanaagga ay la imaan doona haddii ilaahay